macallimiinta wax ka dhiga gobolka Maroodijeex gaar ahaan magaalada Hargeysa oo kula kulanay xarumahooda ayaa ka warbixiyay sida ay u soo gaadho lacagta dawladdu iyo mushaaraadka ay qaataan macallimiintaasi waxaana ugu baaqeen xisbiyada qaranku in aanay siyaasadeen waxbarashada isla markaasina waxbarashadu ay banaanka ka tahay siyaasadda iyo wixii la halmaala xubno kamid ah mas'uuliyiinta iyo maamulka dhinaca lacag bixiyaasha wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare iyo sidoo kale maamulayaasha dugsiyada iyo macallimiinta gobolka Maroodijeex ayaa dareenkooda ka waramay oo arintaasi ka hadlaya waxaana ka jawaabeen hadallo dhawaanta ka soo yeedhay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo ku eedeeyay wasaaradda waxbarashadu in 4 bilood aan siinin mushaarkii macallimiinta dawladda halkan joognaa waa xafiiska xisaabaadka ee waxbarashada gobolka bariga Hargeysa mushaarka bishan aan bixinayna maanta oo ay bishu tahay 25 waa mushaarkii bisha September intii xisbiga kulmiye haystayna bilowga waxaanu qaadanay 25 bisha intii Soomaali joogay intii wasiirada joogtayba bil kaliya oo mushaar la waayay ma jira abayraatee dugsiyada imika meesha joogay iyo macallimiinta imika taageerina bisha 25 lacagta loo soo hormariyay sidaas ay ku qaadanayaan imika dugsiga qaadanayana waa dugsiga sare waran cadde marka cidda sheegaysa in mushaar la waayay iyo cidda sheegaysa mushaar aan leeyin todobada sano kulmiye joogay saas loo qaadanay 25 bisha bilowga waxaan qaadanaa 25 bisha mushaar aan weynaana ma jiro intii kulmiye haystay hadii alla yiraahdo bil kasta waa joogto si joogtana waa qaadanaa marka wax ma jiro barbaqada iyo mushaar la waayay waa loo qadimaa insha Allah taala aniga maamulaha dugsiga oo saddex ee Maxamed Mooge waxaan in magacaygu leeyahay Axmed Cigaal waxaan nimka qaadanaynaa mushaarkii bishan September waa 25 bisho mushaar naga maqan oo ku maqan ama maaliyad ama meel kale naga maqan ma jiro in mara wanaagsan horta in saxaafadda been laga sheego in barnaamijyada geliyo maxay 4 bilood baa mushaar ka maqan wax alla wax naga maqan waxaan cadeynaynaa in wax alla wax naga maqan aanay jirin waxaan ka codsanaynaa xisbiyada inaan la siyaasadaynin wasaaradda waxbarashada waa u badkeennay waa u baxeennay waa ku dhariina bedelayay intii xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ay dalka joogtay mushaharka wasaaradda waxbarashadu waxa uu soo dhacay 25 bisha ayuu soo dhacay sida maanta ka muuqata maanta bisha September waa 25 bil walba macallinku wuxuu qaadanayay 25 ayuu qaadanayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Habane waxa kaloon aad iyo aad si kalgacal ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo u hagar baxday wasaaradda waxbarashada uguna horeysay wasaaradaha waxbarashada wasaaradaha dalka ugu horeysay mushaarka xagga macallimiinta iyadoo isku taxalluujisa sidii macallinku wixiisa yar ugu helila iyadoo bishu dhamaanin wasaaradda waxbarashada nidaamkeedu sax yahay wax alla wax ka qaldani ma jiro cid alla cidii isku daysay in dariiqa saxan ee wasaaradda waxbarashada haystay doonaysa inay ka dudayna ku suurta gali maysan leh aniga magacaygu yahay Ismaaciil Abshuur Taani kana mid ah macallimiinta ka howlgasho gobolka Maroodijeex qaybta galbeedka waxaan hadda joogaa oo ku suganahay waaxdii finance-ka ama lacagta lagu bixinayo gobolka waxaan dadka u cadeynayaa inaan bil kaliya 25 bisha ka dambaysa aan wali mushaar qaadan haddana ay bulshadu arkayso mushaarkayagii oo gacanta ku haysan oo la siinaya in dadku ay ka daayaan waxbarashada siyaasadda oo ay tahay aasaaskii bulshada waa been bilna kuma lihin waxna kuma lihin waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo bisha mushaarkeedu mar kaliyaata aanu naga habsaamin imika bishii oo aan dhamaan tuulooyinkii way gaaraysaa lacagtaas hadii ilaahay yiraahdo macallimiintu waxa weeyaan waa aasaaskii bulshada waxaana yihiin hormoodka horumarinta bulshada xisbiga talada hay'adda kulmiye waxay ku guuleysteen inay magaraysaa horumar weyn ay ummadda gaarsiiyaan waxaan xasuustaa waqtigiisii oo aan sugaynay 3 bilood maantana waa guul lagu farxi karo waxaana ilaahay ka rajaynayaa cidii ka dambaysa haday kulmiye noqotay haday cid kale noqotaba inay iyaguna halkaas ka sii anba qaadaan waxaan leenahay hadalka la yiri uu xisbigaas la sheegay uu yiri wax alla wax ka jira ma jiraan bil walba iyadoo bisha gaarin
24 bisha 25 bisha 26 bisha hadday u badayso u dambayso 27 bisha ayaa la keenaa mushaharka ay qaataan macallimiinta waxaan leenahay wasaaradda waxbarashadu ma geeyo ama waxbarashadu ma geeyo siyaasadda laga daayo